waxay haylo maalin ka hor markii gudoomiyaha hay'adda ka hortagga masiibooyinka ee kaydka raashinka qaranka uu si rasmi ugu dhawaaqay in guud ahaanba dalku galay xaalada abaareed oo adag isla markaana gobolka uu yahay gobolka ugu sii adag abaaruhu sida baan u saameeyeen gaar ahaan deegaanada ku tirsan xeebta ee hoos yimaada degmada Lughaya ee gobolka Awdal shacbi ku dhaqan deegaanadaasina si baan abaaruhu saameeyeen kuwaas oo tacaalaya xaalada adag oo soo food saaray iyadoo gabi ahaanba xulaakaas ku dhaqan ay waayeen wax quutaan duwaguna uu yimid badda si halkaas wax uga raadsado maayirka degmada Lughaya oo horaantii bishan la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay halkaas ay soo food saartay xaalada abaareed oo adag isagoo ka waramay xaalada ay ku sugayeen shacbi ku dhaqan deegaanada ku tirsan xeebta gaar ahaan deegaanada hoos yimaada degmada Lughaya isagoo arrimahaas ka hadlayna waxa uu yiri abaartii waxa noo muuqata aad u xoog badan oo dadkii ay dhibaato badan ka muuqato xoolihii ay aad u dhimanayaan oo dadku aad u tabacsan yihiin iyo wali wax gargaar ah waxa ilaa hadda aan soo gaarin dadkaasi noocu doona waxa noqdo runtii sidaan horeba u sheegnay deegaanka degmada Lughaya dhamaantiis waxa ka taagan abaar aad u xun oo xoolihii ay ku leedeen arigu waqti hore iyo maxaydana dadka intiisa badan ay ka baxeen geeliyo shayga ugu adkaysi badnaay ay dadku ay dhaqan jireen ahaa iyo maanta sida ariga u dhimanaya sidoo kale maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Awdal ayaa iyaguna ka deeriyay xaalada adag soo food saartay deegaanada hoos yimaada degmada Lughaya iyagoo ugu baaqay guud ahaan shacabweynaha ku dhaqan Soomaaliya inay ka qayb qaataan sidii loo sameeyay bixin lahaa dadka abaaruhu sida baan u saameeyeen ku dhaqan deegaanada hoos yimaada degmada Lughaya iyo arrimahaas ka hadlayna waxay yiraahdeen goobaha ugu daraa haddaan isku taago waa degmada Lughaya barigeeda iyo galbeedkeeda baan idhaahdo xagga bariga oo kale meelaha ugu mucjisada badneed bahayd tuulooyinka yaryar la yiraahdo maxaan ku raahdaa idaacadays iyo hadayta oo runtii aan ugu tagnay dad aad iyo aad u tabcaan oo liita oo ari iyo geelba dhamaadeen dameerihii ay maaragtay wada fadhiisteen dadkiina ay maaragtay halka tuban yihiin dhaxan daran baa runtii ka jirtay oo xagga badda ka soo kacaysay oo badda kacsanayd iyo baraf dhaxan badan baa ka jirtay oo dadku waxay u baahan yihiin ugu muhiimsan waxa weeyaan waxay ku noolaayeen neefka xoolaha iibkiisa iyo waxa ibta ay ka helayaan bay ku noolaayeen labadiiba markay ka dhamaadeen dadku tabcaan bay runtii ahaayeen gurmad degdega ay maxaan ku dhahdaa ay dadkaasi ay u baahnaayeen xaaladani soo food saartay deegaanada hoos yimaada degmada Lughaya ee ka tirsan gobolka Awdal ayaa noqotay mid si aad looga deeriyay iyadoo xukuumadda Soomaaliya hadda ay ku hawlan tahay sidii ay u sameeyay bixin lahayd dadka abaaruhu saameeyay ku dhaqan degmada Lughaya ee gobolka Awdal walow ilaa hadda ay jirin gargaar la taaban karo la gaarsiiyay dadkaasi oo wax tari kara dhankooda waxayna si baan uga deeriyay xaaladda abaareed soo food saartay degmada Lughaya ee gobolka Awdal sirkaas oo ka tirsan gudida abaaraha gobolka Awdal waxana uu sheegay in xaaladda dadkaas ay ku sugan tahay mid aad u adag isagoo ugu baaqay guud ahaan shacabweynaha ku dhaqan Soomaaliland inay ka qayb qaataan sidii wax loo tari lahaa walaalahooda dhibaataysan ee ku dhaqan degmada Lughaya ee gobolka Awdal ka taagan deegaanada gobolada gobolka Soomaaliland dooyinka gobolka sii diraysay waxa weeye xaaladda adag baa ka taagan runtii dadka ku dhaqan dhulkaas oo xoolaha dhaqata ah runtii xoolaha ku noolaa waxa ku absatay masiibada ruskutii waxa weeyaan mudooyinka 3 sano ee deegaanadaas wax loo bixin taasi waxay keentay markaa in xoolihii dadku haysteen ka baxaan arigiina uu ka baxay shinkii oo geelaya isku yimid waxa uu ku dhacay geel buuha geelina furo ka baxay dadkaas waxa weey dadkaasi waa dad waxa weeyaan xoolaha wixii uga soo go'an waxay ka iibsadaan iyo waxay ka cunaan baa bulshada ku tiirsanay runtii marka xaaladdeena adag baa ka taagan waxa weeyaan waxaan nahay ku soo aragay xaaladda waxay dadkaasi waxa weeyaan dad laga adkaysan kara maaha dadkaasi waxay u baahan yihiin in gurmad loo fidiyo runtii waxa weeyaan waa dadka ay haystaan waa walaalahooda kale wax haysta in marka dadka gurmad loo fidiyo oo lala qaybsado dhibta runtii taagan ee haysata walaalaha waxa weeyaan dhulka xeebta eegaya gobolada Awdal iyo Salal bay saaran ma kala horo maanta waxa weeyaan ma kala horo wad maqlaysay baaqyada daba taxanay ka soo baxaya dadka deegaanka maamulka gobolada degmooyinka intuu wax sheegay dad cusub runtii waxa weeyaan xaaladii la daawaday runtii ma ahayna waxa la dadkaas ku jiraan dadka muslimiinta inay ku eegaan ma ahayna walaalahoodaasi inay u gargaaraan oo waxay ku dhacmaan u geeyaan waxa weeyaan gurmad ballaaran dadkaas u baahan yihiin
si kastaba tii xaaladda adaga soo forsaatay deegaanada hoos yimaada degmada Lughaya ayaa waxay noqonaysaa mid gebi ahaanba saameysay dadkii dunida ku dhaqanaa deegaanadaasi iyadoo abaarta ay noqonayso abaartii labaad ee ku dhifatay gobolka Awdal tan iyo sanadkii 2016 waqtigaas abaaro xoogan ay soo faasaareen guud ahaanba deegaanada kala duwan ee ka tirsan gobolka Awdal Mustafa Caraale Saab TV Boorama